السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan marka hore waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida iga joogaan. Salaan kadib halkan waxaan tacsi tiraanya leh uga dirayaa dhammaan shacabkii shalay ku geeriyooday ex control afkooye qarxi ka dhacay. Tacsi kadib halkan waxaan rabaa in aan farin uga diro fanaanka caanka ah Maxamed PK oo hadal xanaf leh ka jeediyay shir ka dhacay London oo isaga lagu soo dhaweynayay ka oo ku sheegayo Somaliland illa aqoonsado ee ku xiran tahay qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho. Macnaheedu ay tahay qaraxyada Muqdisho ka joogsamayaan ilaa Somaliland laga aqoonsado. hadalkaas wuxuu ahaa hadal cadiifad ee ku dheehan tahay nabadan la dhahaya nafta dhiirigeliso geyigan ku dhaata waa dhaxal awowgay runtii 1991 wixii dhacay Maxamed Siyaad Barre burburkiis kadib wixii dhacay haddii aad rabto in aad ummad ku cadaabto ama in ummadda Soomaaliyeed lagu ciqaabo aad jeceshahay annaga taas marna ka yeeli mayno. Maxamed PK waxaan ku sheegayaa dagaal la 91 in aad maanta Soomaaliya xasuuqay aad dhahdo waan ku faraxsanahay Somaliland ha aqoonsadaano haddaysan aqoonsanne waa kuwadeena dhibaatada iyo qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho oo micnaheedu ay tahay annaga ka dambeeyna qaraxyadaas wal cibaadu billah. haddii aad ku faraxsan tahay maadaama aad ahayd nin fanaana oo fanaan Soomaaliyeed ah maanta sumcadaad adaa dhulka ku jiiday. dadka dhamaanaya waa Soomaali, dadka dhaawacmaya waa Soomaali, waa muslimiin. dadka dhibkaas keensanayna waa dad Allah iyo rasuul aan aqoonin oo markasta dhiigga Soomaaliyeed iyo dhiigga muslimiinta ku farxasha. laakiin Maxamed PK waxaan ku sheegayaa dhibaatada ka taagan Soomaaliya haddii aad ku faraxsan tahay una baahan tahay in lagu aqoonsado horta aqoonsi kuma helaysid dhiig ummadda muslimiinta aad ka gasho. Maxamed PK dhiig ummadda muslimiinta aad ka daadiso wallaahi billaah tilla aqoonsi inaadan ku helin. marka Maxamed PK sumcadaada waa ku dheeshay, sumcadaada waa ku ciyaartay. waxaana ku sheegayaa maanta maalin aan ahayn in hadalka aad tiri lagu maxkamaday doono sababtoo ah waxaad ku dhawaaqday hadal cunsuriyad ee ku dheehan tahay. waxaana ku sheegayaa sumcadaada ilaasho kana soo bixi raali gelin. maalin kasta xasuuq ka dhaca Soomaaliya wallaahi aad ugu xunna kaaraan magaalada Muqdisho. nabadan la dhahaya nafta dhiirigeliso geyigan ku dhaata waa dhaxal awowgay nabadan la dhahaya nafta dhiirigeliso geyigan ku dhaata waa dhaxal awowgay waxaan igu wadaagnaa inta iga agdhowo dhalashana mid baan nahay mana nihin dad kala waxaan igu wadaagnaa inta iga agdhowo dhalashana mid baan nahay mana nihin dad kala